Soomaaliya waxaa jooga in ka badan 20,000 askari oo ka socda midowga Afrika. Nabad ilaalin iyo nabad raadin ayaa ah waajibka ciidankan. Askartan ayaa lagu eedeynayaa inay indhaha ka eeganayaan dagaalka waayahan socda ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Ciidankan oo badi ka socda dalalka Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxay qaataan mushaar sare oo laga siiyo kaalmada loogu talagalay Soomaaliya. Mushaarka ciidankan wuxuu 8 jeer ka badan yahay midka askarta Soomaalida. Shaqadoodana waxaa la sheegaa inay 10 jeer ka hooseyso midda askarta Soomaalida. Markii hore ciidankan waxay ahaayeen nabad ilaalin, balse markii dambe waxaa loo bedelay nabad sameeyayaal oo ah inay ka qayb qaataan dagaalada ka dhanka kooxda Al-Shabaab. dhowr sano ka hor waxay ka qayb qaateen dhowr dagaal oo kooban oo qaar ay ka bilowdeen weerar iyaga lagu soo qaaday. Laakiin hadda oo uu dalka ka socdo kacdoon xoog leh, indhaha ayay ka fiirsanayaan ciidankan ka socda midowga Afrika. Waxaa beenowday eedoodii ahayd in ciidanka xoogga dalku aanay daacad ka ahayn dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. Hadda ciidanka midowga Afrika iyaga ayay eedu dhankooda taallaa. Madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay dadaal ugu jiraan in ciidanka midowga Afrika si buuxda qayb uga noqdaan howlgalka waqtigan ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la soo wariyay inuu mowduucan dhawaan kala hadlay dhigiisa waddanka Uganda, Yoweri Museveni, maadaama ciidanka ugu badan ay ka socdaan waddanka Uganda. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow oo ka tirsan baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya wuxuu dhawaan soo jeediyey in lala xisaabtamo ciidanka midowga Afrika ee jooga Soomaaliya. Ciidankan oo AMISOM hore loo oran jiray haddana loo bixiyay ADMIS ayuu xildhibaan Macalimow ku baaqay in arrintooda la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya oo dib u furmi doona bisha soo aadan ee November. Xildhibaanku wuxuu ku eedeeyay ciidankan inay hagranayaan Soomaalida oo aanay daacad ka ahayn dagaalka Al-Shabaab. Shacabka Soomaalidu waxay badi qabaan in ciidanka ajnabiga ah ee ku sugan dalka inay badankood rabaan inaan laga adkaanin Al-Shabaab si aan iyaga looga maarmin oo uusan mashruucooda dhaqaaluhu u dhammaanin. Tan iyo markii uu dib u bilowday kacdoonka ka dhanka kooxda Al-Shabaab, ciidanka Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ayaa hal maalin ka qayb galay dagaal ka dhacay ee gaarka Buulabarde. dad badan oo Soomaaliyeed waxay qabaan in la joogo xilligii ay Soomaalidu la xisaabtami lahayd ciidanka midowga Afrika oo lagu biilo kaalmada Soomaaliya. Marka uu baarlamaanku dib u furmo bisha November, waxaa jira dareen ah inay doodani ka mid tahay waxyaabaha ay xildhibaanadu miiska soo saari doonaan haddii aanay ka hor ciidanka ADMIS qaadin wax tallaabo ah oo la xiriira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. dagaalka xilligan lagula jiro Al-Shabaab nuuciisa oo kale horay uma soo marin dalka. In ciidanka ADMIS ay dagaalkan ka sii maqnaadaanna waxay xoojinaysaa tuhunka Soomaalidu ka qabtay ciidankan, waxayna dhinaca kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ku qasbi doontaa inay ka fakarto xal ka duwan ku tiirsanaanta ciidanka ajnabiga ah. Maxay kula tahay adiga?